marka wax baranaysan adduunka aad u socotaan iska saboolnimada qurux badan wax un ma hada ninkii xoreeyay Hindiya soo Gandhi ma hayd ayaa Mareykanka Ingiriiska lagu casumay maamuusa say xidhaan ma taqaanaan maamuusteenu kala xidhaan markaad ku bada ciyaartaan maamuusa maxaad samaysaan inta aka daba soo galisaan daynamadu ku ciyaartaan halkii soo galiyay isagoo lagu yaraado dhawaan wato ul yar wata ayaa boqoradii Ingiriisku la fadhiisatay nin professor oo British ah tayga xidhan ayaa la yaabay waxay wax xidhan tahay buu maamuusna ka dambe aad soo galisay yaa loo yaraado dhawaan waa Gandhi markaasuu yiri waxay wax xidhan tahay uu yasayaadee markaasuu Gandhi yiri intuu taygii taabtay buu yiri kana waa maxay adna markaasuu necktie barka necktie baa leeyahay markaasuu kana back tie Gandhi I love Gandhi wallahi arya ma biga qosnay wuxuu yiri waxa la yiraahdaa buu yiraahdaa back tie baro buu yiraahdaa ha marka atamanna inaad noqoto back tie-ga oo waxaad haysataan aad qiimaysid waxaad haysid qiimayso waxaad tahay qiimayso Allah nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo quraanka agtiina qiimaha ku lahaado thaqaafada iyo waxbarashaduna agtiina qiimaha ku lahaato adigu hays waayin hadra wuxuu London uga yimid markuu dabahuwan dhameeyay 800 bayt ayaa wuxuu yiri ma soo istaagay bil wada London ku taal buu yiri roob baa da'ay buu yiri dadkii oo dhan gaadhin oo dhan bay dhaafay buu yiri maano Hargeysa iyo Burco joogi lahaa la dhaafi lahaa buu yiri hadra wada ku dhaafi leeyahay markaas yiri intuu eegay buu yiri waan iswaayay waa concept psychological alienation qofka ku dhaca waa cudurrada ku dhaca kiiniyada kala siyaaba waad ka jirtaa laakiin ma ogid waxa tahayba madboodo walla ku yaqaana mar badhan baa u socota cid kasta ku haysan karta kadib markaa yiraahdo London ma joogay waa iska imanaya ha jumhuuriya qolooyinka adaadimka tagtaan archive-ka jumhuuriya journal keenanday archive-ka hada tagtaan maalintuu hadraaw Hargeysa ka soo dhaadhacay ha ayaa wuxuu waan ishelay halkiina waan hayaa buu halkii maxaad ku maqneed baa la yiro halkii baa inoo doonay buu halkii baa inoo soo helay dabahuwan bay noqotay halkii ma dadayna odaadiro Burco joogo reer hebel abaynu Burco u naqaan hadraaw Soomaa ha sheegantiide ha inta Soomaa inta ma dhaafayno mushkil bayna haysataa waa ummad aan meel gaadhayno musiibo Ilaahay ku riday ma inuu yahay filosof ma inuu yahay aqoon-yahan ay tahay gabayadiisii la diraaseeyo oo la fasiro oo aayado loo eego oo xadiis loo eego oo la kobciyo laga soo qaato maxay model aqooneed jaamacadu ay ka soo qaataan oo hooyalka jaamacada hooyo loo bixiyo jaamacada loo bixiyo ha qof walba uu leeyahay Mareykanku ragoodii aasaasay jaamacadooda ugu magac dareen marka adeeraya hadalku waan ku raajiyay waan ku daaliyay waxa tiin hay loobina laba ha isyaasina ha isquursanina aqoonsada idinku markaad yareedeen siirada maxay loogu sheegay qofkii ugu horeeyay Nabi Maxamed rumeeyuu ha ragga yuu ha dumarkana caruurtana soo intay noloma dhigi siirada markaynu yareyn markaan weynaaneen quraanka akhrinay waxaan ogaanay inaanay jawaabahaasi sax ayna sheegteen in jawaab kale jirto quraanka ku jirtaan ogaanay quraanku wuxuu leeyahay cidii koowaad ee Nabi Maxamed rumaysa Nabi Maxamed buuxa saas rumeeyay aamana ar-rasuulu kadib Abu Bakr imanayay laakiin waxa sidii hadaan aaminsanay ma cid baad qancin kari adigu hadaan aaminsanay aad muslim tahay Soomaali aad tahay ethics ka soo jeedid dhulkan aad joogtid aad doonaysid dhulkan aad horumarisid aad wax adoo saboolo waxba aan haysanin oo gaariyaaga yaree iska maalna ka baqtay maalna ku istaarmaya adeer ma fahmaysaa aad ka dhex socotid habinaad ku tahay inaan tuna aysaa hab ay ku tahay miskiinka yaree labadeere la xuxda soo helaya qabiltu ay leedahay oo sincinaynin laakiin adiguna haduu sareeyo standardkaagu in kana standardkiisu hadii uu sareeyo oo inuu wada doonayno next 10 years